سهيل إنك تطعم الطعام الكثير وذلك صرف في المال. فقال سهيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام. إطعام النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. قصة جابر رضي الله عنه في ذلك. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنت جليسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خلق. قال: هاتوه فنعم الأدم هو. أخرجه أيضا أصحاب السنن كذا في جمع الفوائد. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان يقود ناقة تحمل دقيقا وسمنا وعسلا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنخ. فأناخ فدعا ببرمة فجعل فيها من السمن والعسل والدقيق، ثم أمر فأوقد تحتها حتى نضج، ثم قال: كلوا، فأكل منه، ثم قال: هذا شيء يدعوه أهل فارس الخميس. كذا في جمع الفوائد. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب iyo Suhayb saxaabiga la dhaho waxa dhaxmaray qisadu ku saabsan tahay koobaad. kitaabkan waa xayaatu saxaaba juska labaad oo inta badan akhlaaqdii asxaabta aad uga waramaya. diintuna waa akhlaaq weeye. rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa loo soo saaray inama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. akhlaaqda teeda wanaagsan in aan dhamaystiro ayaa la isoo saaray buu nabigu alayhi salaam. anbiya ka horeysay oo diin islaam la yuguna la yimid, marka diintii islaamka anbiyadii hore ay la yimaadeen in aan dhamaystiro ayaa anigana ilaahay isoo saaray baa nabigu alayhi salaam. حمزة ورنه ابن سهيب وحولي أباهي عنتظى أيو هذا بحنجري ضدك أيو عنتظى سينجري هذا بو بحنجري نين هذا فياضه ديقسي أيوها كريمة. عمر بوحولي سهيب باب عنتظى بحن إيسان أرنتها سمينا هاي بولي مركا صرف المال ضد حقوق لها عرورتي أهل كيو وحي لها ين ميلا دافنين. marka Suhayb wuxuu yiri rasuulka kaleey salaam wuxuu dhihi jiray khiyaarukum waxa idinku sharaf badan oo idinku karaamo badan oo idinku maamuusan Ilaahay agtiisa man ad'ama ta'ama qofka cuntada dadka siiyo warada salaamtana faafiya dadka salaamo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa فذلك الذي يحملنا على أن نطعم طعام. هذا كان النبي هو يري خياركم من أطعم طعام ayaa igu xambaaraya buu marka waxaan hayo dhanba ina fi sabiilillaah aanu bixiyo. qisa kale Jaabir iyo nabiga dhaxmartay alayhi salaam. akhraja Muslim sahih Muslim wuxuu ku soo saaray Jaabir wuxuu waxaan ahaa ku fadhiya daarteeda gurigayga fadhiyay, nabiga ayaa soo maray alayhi salaam markaas uu ishaaro inna kan buu yiri waan soo istaagay fa akhadha bi yadayya. nabigu alayhi salaam labada qafcood bay qabtay taasoo gacanta ii soo qabtay marka qofka saaxiibka ah inaad gacanta qabsato oo la dhaqaaqdo. fandalaqna buu waan tagnay
ilaa aan ka gallo guryihii nabiga guri ka mid aha nabigu waa galay calayhi salaatu wasalaam way idnay fadakhaltu alxijaaba calayha meeshii dumarku ay fadhiisan jireen ee marka xijaabku u dhexayn jiray baan anagu aan fadhiistay buu yihi markaa qolkii gaarku ahaa faqaala markaasa nabigu wax cuntaha ma haysaan qaaluu waxay dhahay markaa nacam nabiga waxaa loo keenay cuntadii 3 midh oo kibis ah kibis madaabo mid aad u taqaano ayaa markaa nabiga loo keenay fawducna calaa nabiy marka meel saraa la saaray kibistii nabiga 3 midh ayaa meel saraa la saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam xabad kibis uu qaaday hortiisa ayuu dhigay xabad kalena wuu qaaday wuxuu yihi jaabir anigu i hor dhigay xabadii kalena wuu kala jeexay jeexna isagaas hor dhigay jeexna aniga i hor dhigay markaasaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dumarkiibuu la hadlayo wax suugaa ma haysaan hal min udmin markaasa waxay dhaheen may wax khal mooyaan khalka khadhaadhe wax saa loogu markaasaa nabigu wuxuu alayhi salaam khalkaba keena nicma ludmu huwa suuga wanaagsana asaga weeyaan isaga ugu suuga wanaagsane keena buu markaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanayaa nabiguna inay saxaabtu inay nabiga kaga daynayeen in wax la bixiyo oo markaa ilaahay subxaana wa tacaala markaa cuntada dadka maxaa yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadday diin tahayna asaga keliya kuma koobnayn hadday adduunyo tahayna asaga kuma koobnayn wax walba nabigu inuu gudbiyo ficil mutacadi ah uu noqdo ayuu markaa nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam weliba nabigu inta badan calayhi salaatu wasalaam ficilka hadda cuntada in qofka la siiyo waa ficil mutacadi ah waa ficil qofka dhaafahayo oo qof kale u gudbahayo wey labada shilinka aad qof gaajo kaga tirayso iyo shilinka qof naar aad kaga badbaadinayso labadaba adiga way ku dhaafahayaan ayadoo labadaba la rabo haddana waxaa sii fadli badan qofka shilinka aad markaa naar kaga badbaadinayso inta badan nabigu calayhi salatu wasalaam xoolaha wuxuu ku bixin jiray dadku inay soo islaamaan fuqaradiiyo joogto maxaa yeelay qofka oo naar laga badbaadiyey iyo qofka oo gaajo laga badbaadiyey waa midkoode qofkoo naar laga badbaadiyo kaana yuslimu 2 buur oo dhexdood xoola ah ayuu nabigu bixin jiray calayhi salatu wasalaam inay soo islaamaan darteed markaasay dhihi jireen aslimuu fa ina muxamadan yucطi caطaa'a man laa yaksha alfaqra nabi maxamed wuxuu bixinhayaa xoolo sidii nimaan faqri ka baxaynin oo kale soo islaama ayay markaa dhihi jireen marka cuntada dadka la siiyo waa shay fiican in dadka dharka la siiyo waa shay aad u fiican ee diintu ammaantay in sidoo kale ka qaawan dhar loo xidho waa shay fiican ka buko in isbitaal la geeyo waa shay fiican waxaa kasii fiican dadka hidaayadooda in lagu dadaalo qofka siduu naar uga badbaadi lahaa waa 2 shay ficil oo mutacadi ah oo jinsi alcamal tafdiil jinsi alcamal fi sabiili illah waa 2 shay oo fi sabiili illaahi ah oo haddana lasii kala fadilahayo wey عثمان أخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام الله كره الله النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بواركي اسوق نيف هل هجامين هي ومركا فرور وضع فرور انت وحري مركا وضع اي كوحا بارسنتا دقيق iyo waxa marka subag iyo casal malab saddexdaas qurra neefka geela daqiiq bur iyo malab iyo subag markaas nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam tujibu halka fadhiisaasha waa la fadhiisiyay nabigu wuxuu yeelay dhari fajacala fiiha min as-samni wal asal wal daqiiq marka nabigu calayhi salaatu wasalaam subagii iyo casalkii iyo daqiiqdii burkii saddexdaas uu isku daray nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas dab lagu shiray hatta nabiga ilaahay ka bislaatay saddexdii subagii iyo burkii iyo malabkii oo la isku daray waa isla bislaaday thumma qaala nabigu wuxuu cuna fa akala minhu nabigu waxbuu ka cunay markaas wuxuu yiri tani waa shay reer faris ay ku magacaabaan khamiis oo waa maxay waa timir iyo bur marka la isku daray oo cunto aad u fiican oo macaan ayuu marka nabigu ka dhigan tahay calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal saasa nabiga laga deenaya calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii uu jeclaa nabigu inuu calayhi salaatu wasalaam waxa la wixii khayr oo dhanba inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam una asaga kaliya uu ku koobnaanine oo nabigu markaa isdaafiyo calayhi salaatu wasalaam nabi wuxuu yiri ibn aadam innaka an tabdul al-fadla waxa dheeriga inaad bixiso khayrun laka aday ku khayr badan tahay waxa adiga ka badan inaad bixiso marka xaajadaada dheer inaad bixiso waa ku khayr badan tahay wa an tumsikuhu sharrun laka inaad haysatana waa ku shar badan tahay wala tulama ala kafaf ba nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa adiga aan ku dheerayna lagu canaanan maayo mise waa xadiis qudsi
waxa adiga aan ku dheerayna lagugu cananan mahayo gacanta sare ayaa gacanta wax bixinaysa ayaa ka khayr badan baa nabigu calayhi salaatu wasalaam gacanta wax qaadanaysa marka mar wala adigu inaad khayrka aad dadka la jeclaato taasu markaa nabigu kugu boorinaya calayhi salaatu wasalaam oo cuntada dadka la siiyo صادرتين بالنبي لأن محمد عليه الصلاة والسلام وحال الله يسألونك ماذا ينفقون محيب بحين هيا قاب كيف وحب بحين هيا بكويدين هيا وحوله هذا سيو استعمالها هيا قولوا العفو بالنبي اللي عليه واحد هذا وحل وحي حاجة دينا دائر ونمبا إلهي ديتي سوكو بحي ولبا وحيالها وحاجر القرآن الأمنيات المستحيلة وحيالها مرنا بقفك أندبو سومرين لكن هذا فرصة هذا هيسط حاكمها قفوا الحقوق على علي ما لنت قيامها لو أن اللي كره فأكون من المحسنين إلى هذا هالمردبي يعله محسن بان نقول لها محسن هو قفك خير ولا إيمان يوي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا إلى هو عمل صالحا قال هاي هالمردب ما بيع عليه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى وحولها وحنا سيدنا وحكم بحية أنت يمدكين قريبا ينوي من نكهر حولها ما أنت عليه سطو إلهي باكو سيي علمك إلهي باكو سيي عقلك إلهي باكو سيي عرورت إلهي باكو سيي مقع إلهي باكو سيي شرفت إلهي باكو سيي وروحا لكو سيي آخر ودر سبع لكو إلهي من قبل أن يأتي أحدكم الموت انتهي لقيريدو كوي من نكار وفيقول ربه نبرك لولا أخرتني إلى أجل قريب إله ودى النبي على الله فأصدق وكن من الصالحين وصدق يسلى صالح بأن نقول الله حتى لو إلهي صالح نقو حتى لو إلهي منفق نقو حتى لو لها مجاهد نقو حتى لو لها مضحي نقو حتى لو لها خير هو عرب حسن البسري قصدنا قصة كومنا رحمة الله عليه ما نمو سوق عنده سوقته مركز وحو يلي نن قبري بطلك هنا لو رجع هذا ماذا يفعل كل هذه نكن وصان نقول لها محوزة ما لها مركز وحو يتصدق وصدق يسل لها ويصلي وتكن لها ويتزود سهينة وقاضا لها وسوم لها خير بدن بوتري حلو ما أنت أصلاً ما قبلك لكن إنك وان قبلك رأيين إنك إن نعرفه. مركب فرصة هنا كفاية إذا دياه وديار إن شاء الله.